السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحاب تقاليد أهوان السلام ميلو بأدنى دافيد كجوكتيرو مسكين تيرا روضة عبد الرحمن جنالك أدق مقليسان روضة عبد الرحمن وكان إلى الله أو يهرك اللي سوق بنا ولكن روضة عبد الرحمن ولا لي قالي قابليس وحني وعسنا جنالك تذكر صوت الله كومنتشر سكراب ندي سابتين انت إسابتنا محيضة مع سنتهين انت يقع صبنا ونسود وينايا ولا لي قيمها شرفت بدن صحابتي إذا قالي وحرجة دمانتي إن نوت قبتين انت حنوصل الله سبحانه وتعالى عافمار بشي بروقة إلى ورجينايا ولا لي قالي سيدا وقت جنك ما مهما كم مغناي ان واي وان حنوصناي الله سبحانه وتعالى ايام حيد هذا اسكله او مسوروني ومانتي انت ان سهر استاغ اي كسي الحمد لله رب العالمين ادي كانوا حرجينا دمانتينا اي في عنتين ولا لي قالي انت حنوصنا الله عافيه ان ولا لي قالي سيدا وقتين جنك مالمها انت تحسوم جلجدي واني قرا لي واي واسكا ير حنوصدي ان مر walbana waxaan jeclahay farxadiina anigana farxadiina jeceshiin waan arkay waan iga mahad celinaa sida wanaagsan sabab koreysiin iyo dhiirigelisiin iyo garab taagantihiin janalkayga meesha uu taagay intaad gaarsiin intaas ka wanaagsan tan waan rajeynayaa walaalay qiimaha badan inkastoo aad iyo aad yani bariyahan dambe iyo awal baan janalkayga uga caajisay een waxaan rajeynaa inaan ka caajis doon hadii aan naftu baaqi ugu tahay een asxaabtayda qiimaha badan leh hadalkayaan ku dheeraan waxaan maantay afar qodob oo horumar lagu gaari karo oo qof walbana jecel yahay qof walba ogahay in horumar sida lagu gaari karo ogtihiin laakiin waxaan jeclahay sadan inaan sii dhiirigeliyo maadaama aan jeclahay dhiirigeliyo weyn mustaqbalka inaan noqdo mar walba aan niga caajisin meel walbana ka soo muuqdo oo qof walba walaalkii Soomaaliyeed ee hadii hadal noqon lahayd hadii wax dheef noqon dhan kasta aan jeclahay walaalay qiimaha badan leh ee mar walba waxaan rajeynayaa insha Allah een janalkayna waxyaabo xiiso badan soo gelin doono waan iga mahad celinaa sida wanaagsan iyo garab taagantii iyo support gareysiin iyo jeceshiin Allah subhanahu wa ta'ala hanay jeclaado hanigana raad noqdo bushbush iyo barwaaqo iyo nabad iyo caafimaad hanisiyo asxaabtii qiimaha badan ee hadalkayaan dheereen hadii aan soo laabto fartii qodob inaan ka hadlaan rabo maantay waxay tahay qodobka sidee guul ugu gaari karaa hadii aad ogtihiin guul si loo gaari karo dhamaantiin ogtihiin een qodobka kood oo guusha ugu gaari karo waxay tahay Allah subhanahu wa ta'ala inaad raaligelisada hal aan shaah Allah aad hadalkiisa samaysid wax ka fiican ma jirto Allah subhanahu wa ta'ala waa qafuur rahiim waa mid naxariis badan ma naxay uu naxariista wax walbana uu ogyahay wax walbana maantay een Allah ma moogo ilaahay waxaan ka baryaa subhanahu wa ta'ala naxariis badan naxariistiisa nimcooyinkiisa oo nasiiyay een mar walba inaan ku shukrino ku xamdino een qodobka labaad hadii aan soo laabtana waa inaad noqotaa qof go'aan leh go'aan yeeshadu waa wax badan ayay ka saacideysaa hadii aad go'aan leedahay wax walba way ku hagaagayaan een qodobka saddexaad hadii aan ka hadlana kalsooni naftaada si naftaada kalsooni si wax walba waa sameyn kartaa adduunka waxaad sameyn karin noloshaada ma jirto hadii aad tiraad ka sameyn kartid ka ku fashilmaysaa qof aan wax qaldin wax ma saxdo een marka qodobka afraad aan soo laabtana een mar walba dadaalkaaga badi dadaalkaaga ha ka caajisin hadafkaaga sidaad intaad u gaarto guushaada lagama caajiso adduunkan waxa uu qiimo badan mar walba inaad noqoto qof hadafkiisa aan ka caajisin dadaal sameey wax walba waa sameyn kartaa intii Allah subhanahu wa ta'ala waxaan looga dheeraana aan ahayn inta qaar waxay aaminsan yihiin Allah subhanahu wa ta'ala wax looga dheeraa in horumar lagu gaari karo laakiin ma ahan taas xaqiiqdii laga hadlay xaqiiqda dhabta waxay tahay Allah subhanahu wa ta'ala inta la saarato qofku kalsoon aad tahay salaadaha badi salaatuleelka salaad walba faral ah sunno inaad ku dadaashid mar walbana Allah subhanahu wa ta'ala wax areena aad iska ilaaliso Allah hadii mar walba raali geliso asagana uu ku naxariisanaa ma naxay marka walaalihii qaaliga waxaan u maleynayaa mar walba inaa qodobadeena anfici doonaan intii hore u ogeedna ay sii la wajbaari doonto intii yani aan ogeyn ay sameey doonto aniga inta badan waxaan ku dadaalaa Allah subhanahu wa ta'ala iguna toosiyo aniga iskuma toosin karo inaan salaatuleelkayga dukado cibaadooyinkayga aan ku dadaalo mar walbana aan ka fakiro cibaadada sidaan yaan u sii badin lahay wax ugu fiican maanta lagu dadaalo oo lagu yani lagu faan waa cibaadada Allah subhanahu wa ta'ala raaligelisha Allah subhanahu wa ta'ala raaligelis adduunka u jeedin walaalihii qaaliga ah maanta wax weyn maahan waa laga tagayaa adigoo hadda qad aniga nila hadlaani hortaagan roodo Cabdiraxmaan ahaan waan dhiman karaa daqad gudaheena dhiman karaa Allah subhanahu wa ta'ala adoonkiisa naxariista badan uu jecel yahay ilaahayna mar walba uu naxariistaa هلا يا مهد إسكال الحمد لله رب العالمين إلهي وحن كبر يا سبحانه وتعالى أمد المسلمين لما أنت يعني واتيسن أم حنوصن إنه عافية أنت عاف ما تقبط وما أنت يعني إلهي كو عاسدن إلهي إنه سوهنونيو تبغون أدونك وحاجر ما أنت يعني عاف ما تقبطه هانتي وحدة أقوال له حدنا الله إلو ذبح oo in adduunka laga tago marka qaar marka dhexdo warheed maxaa kugu dhacay habalow aawe aakhiradaada wuxuu ku leeyahay maaragtay adduunyo maxay yani aakhiraha la gaaro war hada dhimanay sidoo yaa maxay ku sheegay wallahi taas waa ayaan dara dhigi karaa
walaalahey qaaliga ah mar walba waxaan jeclay farxadiina waxyaabahan xiise gelina soo geliyo igu aragtiin insha Allah waan ku dadaali doonaa Allah subhanahu wa ta'ala haduu qadaro oo maartay eeboweyne subhanahu wa ta'ala ilaahayna hana mar walba wanaag hanagu dugo khayrkan hana waafajiyo mar walbana waxaan jeclaa farxadda iyo bashbashka iyo barwaaqo inaan mar walba ku dadaalo asxaabtayda qiimaha leh xog ayaan igu xiisay idinkana sidoo kale rajeynaya intaan ii xiisay inta xiisto anigu waan u xiisay waxaan leeyahay dhamaantiin one love guys asxaabtayda qiimaha badan dhamaantiin waan jeclahay allahna jeclaado waxaan leeyahay sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh